siyaasiyiin iyo waxgarad ayaa maanta goobjoog ka ahaa munaasabad lagu shaacinayay musharaxa xilka madaxtinimo ee dalka mudane Maxamed Cabdirasaaq kaasi oo maanta ku dhawaaqay inuu u tartamayo doorashada madaxtinimada dalka ee la filayo inay dhacdo bisha Sebtembar ee sanadkan. musharax Maxamed Axmed oo la hadlay dadkii munaasabada ka soo qayb galay ayaa sheegay inuu doonayo dawlad daacad ah oo dadka ku hogaamisa dib u heshiisiin iyo barwaaqo. maanta waxa la joogaa waqtigaan u istaagi lahayn Soomaaliya, waxaa la joogaa waqtigaan ka dhigi lahayn wadankeena mid nabadgelyo iyo hodan u ah Soomaaliya. si taas u gaarnana sida ku cad halku dhageena oo ah dawlad daacad ah iyo dib u heshiisiin dhab ah aan ku gaarno nabadgelyo waarta iyo hodantinimo. waxaan soo jeedinayaa inaan u abaarno laba siyaabood. kow, inaan samayno dib u heshiisiin dhab ah oo dib u heshiisiin qaran ah. labo, inaan raadino oo keenno dawlad daacad ah. taageeradiina iyo taageerada malaayiin kale oo Soomaali ah oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba aan u wada istaagno inaynu ka bedelno wadankeena mid lagu yaqaano saboolnimo, colaad, oo aan u bedelno wadankii ugu isbedelka weynaa dunida oo ah mid ku kabtay ama ka soo kabtay burbur barina noqday mid nabad iyo barwaaqo ah. si wada jir ah aan ugu helino Soomaaliya, si wada jir ah aan u gaarno guusha aan gacanteena ku keeni karno, si wada jir ah aan nabadgelyo iyo horumar ugu gaarno heshiis dhab ah iyo dawladnimo daacad ah. magacayga mar kale waa Maxamed Cabdirasaaq, waxaanan jeclahay inaan noqdo madaxweynaha soo socda. kooxda barbaarta gaashaaman ayaa intii ay socotay munaasabada soo bandhigay hal ku dhigyo ay ku taageerayeen musharaxa cusub, waxaana intaa kadib halkaasi hadallo ka jeediyay xubnihii munaasabada ka qayb galay. maxaa tirsan markii ugu horeysay oo siyaasadda Soomaaliya ka soo ifbaxa ma ahan, meelo fara badan buu shaqo badan ka soo qabtay. waxaana aaminsanahay Soomaaliya maanta cudurka ugu badan iyo dhibaatada ugu badan oo Soomaaliya haysataa waxay tahay gacan shisheeye oo banaanka nooga timaada. waxaan aaminsanahay Maxamed Cabdirasaaq inuu yahay cudurkaas ninka daaweyn kara. maxamed soo dhawow. anigu hadda xildhibaan baanahay, xildhibaanada dooran doonana waxa weeye waa kuwa soo socda oo annagana bedelaya ama annaga ah. marka haddaan ka mid noqdo already codkaygii waasi. Abdullahi Ahmed Noor, Universal TV, Muqdisho.